السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وحالكان كسلامينا أرضيدا كحيران channel كاسيدا أكاديمي وحايد لنا هاي مالين ونكسن قلب ونكسن هابين ونكسن ما أنتي قف والبا وقتي وتهاي أيان كسلامينا السلام كدب waxaan maanta ka shaqayn doonaa qaybtii labaad dhanka su'aalaha maadada juqraafiga imtixaankii dawladda sanadkii hore 2021 insha Allah arday qaybtaani muhiim ay ku tahay inaad si fiican aad u fahantid su'aalaha aad soo xifdisid su-aasha koowaad waxay u dhacaysaa sheeg labo ka mid ah astaamaha gibilka nololeyda yani waxa lagu weydiiyay sheeg labo ka mid ah astaamaha gibilka nololeyda jawaabtu waxay noqonaysaa arday astaamaha gibilka nololeyda waxa ka mid ah kow ayaa leedahay nololeyda waxay matalaysaa qaybta nool ee deegaanka labo waxaa jira isdhaafsi carbon laba oxide oo u dhaxeeya nololeyda iyo gibilka hawada yani astaamaha gibilka nololeyda waxaa ka mid ah ayaan dhahnay nololeyda waxa ay matalaysaa qaybta nool ee deegaanka labo waxaa jira isdhaafsi carbon laba oxide oo u dhaxeeya nololeyda gibilka hawada su-aasha xigta ardayey waxaa lagu weydiiyey kala saar noocyada dhirta dabiiciga ah ee dunida ama waxaa kala saartaa noocyada dhirta dabiiciga ah ee dunida jawaabta waxay noqonaysaa arday noocyada dhirta dabiiciga ah waxaynu u qaybin karnaa waxa weeye saddex qaybood kow waxaan leenahay noocaas koowaad waxa weeye kaymaha labo waa haramo weeye saddexna waa caws weeye soo marka noocyada dhirta dabiiciga waxaan u qaybin karnaa saddex qaybood waa kaymaha harame caws su-aasha saddexaad ardayey waxaa lagu weydiiyey loolalka waxay ka muhiimsan yihiin dhigaha sheeg sababta yani loolalku waxay ka muhiimsan yihiin dhigaha sheeg sababta waxay noqonaysaa ardayey loolalka waxay ka muhiimsan yihiin dhigaha sheeg sababta loolalka waxay ka muhiimsan yihiin dhigaha sababtoo ah waxay tilmaamayaan heerka ka fogaan ama u dhowaanta dhulbadhaha iyo xiriirka kala dhexeeyo cimilada ka jiro dowladaas dhexdeeda taas oo iyana saameynayso howlaha dadka dhulka dushiisa taasi waa jawaabta weeye su-aasha xigta ardaye waxaa lagu weydiiyey su-aasha afraad dhanka maadada juqraafiga imtixaankii dawladda ayaan ku jirnaa su-aasha afraad waxaa lagu weydiiyey sheeg oogada dhulka Soomaaliya waxaa loo qaybiyaa saddex qaybood oogada dhulka Soomaaliya waxaa loo qaybiyaa saddex qaybood cadee marka qaybahaasi ama waxaad sheegtaa qaybahaasi ayaad sheegaysaa jawaabtu waxay noqonaysaa ardayey oogada dhulka Soomaaliya waxaa loo qaybiyaa saddex qaybood cadee qaybahaas waxaa ka mid ah waxay kala yihiin saddex qaybood waxayna ka mid yihiin ama waxay kala yihiin cafwan kow jiida dulaha ah labo jiida banaanada saddex jiida buuraleyda ah yani saddexdan qayb ay ka kooban yihiin ama ay ka mid yihiin kow waxaan dhahnay jiida dulaha ah labo jiida banaanada saddex jiida buuraleyda ardayay su-aasha xigta iyo su-aasha shanaad waxay u dhacaysaa sida taan waxaa lagu weydiiyey qor saddex ka mid ah waxyaabaha aadanaha la xiriira ee saameeya filiqsanaanta ama bahsanaanta aan ku celiyo waxaa lagu yiri qor saddex ka mid ah waxyaabaha aadanaha la xiriira ee saameeya filiqsanaanta ardayay jawaabtu waxay noqon doontaa su-aasha shanaad jawaabteeda saddex ka mid ah waxyaabaha aadanaha la xiriira ee saameeya filiqsanaanta waxaa ka mid ah kow heerka dhalashada iyo dhimashada
labo socdaalida hijrada saddex xirfada meherada saddexdaas ay ka mid yihiin waxyaabaha aadanaha la xiriira ee saameeya fiirsanaanta su-aasha xigta waxay u dhacaysaa sida tan su-aasha lixaad waa maxay farqiga u dhaxeeya tamarta la cusbeenaysiin karo iyo tamarta aan la cusbeenaysiin karin يعني waxa laga rabo waxa weeye farqiga u dhaxeeya tamarta la cusbeenaysiin karo iyo midda aan la cusbeenaysiin karin soo ardayda jawaabta waxay noqonaysaa sida tan farqiga u dhaxeeya tamarta la cusbeenaysiin karo iyo midda aan la cusbeenaysiin karin waa ilaha tamarta ama ila tamarta aan la cusbeenaysiin karin waxay ka dhigan tahay ilo tamareed oo dhamaanayo marka muddo dheer la isticmaalo yani tamarta aan la cusbeenaysiin karin waxay ka dhigan tahay ilo tamareed oo dhamaanayo marka marka muddo dheer la isticmaalo tan kale ilaha tamarta dib loo cusbeenaysiin karin waa mid aan dhamaanin weeye yani waa mid aan dhamaanin marka waxa weeye farqiga u dhaxeeyo ayay tahay waana jawaabta saxda ah su-aasha xigta ama su-aasha toddobaad ardayda waxay u dhacaysaa sida tan soo jeedi habka lagu xalin karo dhibaatooyinka magaalooyinka ama soo jeedi hababka ama sheeg hababka lagu xalin karo dhibaatooyinka magaalooyinka jawaabta waxay noqonaysaa ardayda waxay noqonaysaa hababka lagu xalin karo dhibaatooyinka magaalooyinka waxaa ka mid ah kow in xal loo helo ciriiriga magaalooyinka labo in la sameeyo meelo qashinka lagu shubo oo gaar ah saddex in la sameeyo wacyigelin la xiriirta muhiimadda deegaanka uu leeyahay waa intaas weeye jawaabta يعني waxaa leedahay in xal loo helo ciriiriga magaalooyinka in la sameeyo meelo qashinka lagu shubo oo gaar ah in la sameeyo wacyigelin la xiriirta muhiimadda deegaanka ardayda su-aasha sideedaad waxay u dhacaysaa sida tan tiri heerarka qorsheynta xuduudda siyaasadeed يعني waxaad sheegtaa ama tiri heerarka qorsheynta xuduudda siyaasadeed jawaabta waxay noqonaysaa ardayda heerarka ay marto xuduudda siyaasadeed waa 4 heer weeye waxayna kala yihiin kow qeexid iyo qorsheyn labo go'aamin saddex tilmaamid afar maamulka xadka jawaabta waa intaas weeye su-aasha sagaalaad ardayda waxay u dhacaysaa sida tan sidee ay Soomaaliya ula dhaqantay dalalka dariska la ah si loo xaliyo dhibaatada la xiriirta gobolada laga haysto sidee ay Soomaaliya ula dhaqantay dalalka dariska la ah si loo xaliyo dhibaatada la xiriirta gobolada laga haysto Soomaaliya jawaabta ardayda waxay noqon doontaa sida tan Soomaaliya waxay ula dhaqantay dalalka dariska la ah si loo xaliyo dhibaatada la xiriirta gobolada laga haysto kow talaabo la xiriirta sharciga labo talaabo diblomaasiyadeed saddex talaabo ciidan si loo soo celiyo gobolada ka maqan yani talaabooyinkaas ay yani Soomaaliya raacday markii yani sharciga wax qaban waayay markii heerka ama talaabadii diblomaasiyadeed kadib waxay go'aan ku gaartay Soomaaliya in ciidan si ciidan dagaal si ciidan ama talaabo ciidan si loo soo celiyo gobolada maqan oo Soomaaliya ka maqan ardayda su-aasha ugu dambayso ayaan soo gaarnay waxaa lagu yiri maxaa loo jeedaa tamar ama waa maxay tamar ardayda jawaabta waxay noqon doontaa tamar waxaa loo jeedaa waxa weeye awood lagu qabto shaqo ama hawl yani tamar waxaa loo jeedaa awood lagu qabto shaqo ama hawl ardayda intaas ayuu tobankii su'aal waan ka shaqaynay insha Allah waxaan rajeynayaa ardada inay ka faa'iideysan doonaan fiidiyogan su'aalaha ayna buugaagta ku qoran doonaan insha Allah waxaan idin rajeynaynaa guul iyo inaad guuleysataan
iyo natiijo aad ku farxdaan inaad keensan doontaan insha allah. dadaalkiina halkaas kasii wada. ka macalin ahaan waxaan nigu duceynaynaa ama aan nigu duceynayaa anigoo ah ustaad cabdinaasir inuu ilaahay idin fududeeyo imtixaanka oo nigu soo food leh. idinkana waxaan iga codsanayaa ardada Soomaaliyeed inaad dadaashaan, akhriskaad badisaan, insha Allah waad guuleysanaysaan. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. خير غارس